waxay la muuqataa ninka la yiraahdo horta gudoomiyaha aqalka sare waa nin weyn oo muxtaram ah oo runtii ahlu sharaf ah oo anigu aan aad u ixtiraamo laakiin markan waa ka hoos baxday inuu mucaaradka iyo dowlad goboleedyada qaarkood oo iyagu noqday mucaarad xaq darro ah inay dhex galaan anigu ma arko in saamileeda hadda xaq u leh inay hadlaan inay ka mid yihiin shacabka Soomaalida ka mid yihiin wali lama register gareyn murashaxiin maysan noqon ma garad wali baarlamaankii lama soo dooran maxaad u sababaynaysaa gardarrada soo muwaadiniin Soomaaliyeed ma ahan soo xaq uma lahan inay ka hadlaan masiirka dalkooda way ka hadli karaan laakiin qaabkay uga hadli karaan hab cilmi baaris way uga hadli karaan hab oo nasiixa ah inay dawladdu u nasiixayaan ayagoon foodo abuureen ayagoon walaaci walwal abuureen ayagoon kicin bulsho abuureen way ka hadli karaan taas nin kastoo muwaadina xaq u leh ma garatay wali rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay hadalka ugu qiimo badan adduunka ugu fiican inuu yahay qofka ma aragtay imaam caadil ah ya imaam jaa'ir ah oo xad gudbaya qofka runta u sheega way fiican tahay ma garatay laakiin maxaa la rabaa waxa la rabaa inaad protocolka ilaalisid hal mar baad madax baad tahay waa hadashay hadalkaaga halka ku reeb cidna ha caayin cidna ha durin issue ka hadal qadiyad ka hadal si cilmiyeysanna uga hadal waa sax markii iyaga murashaxnimada la diiwaan geliyo markaas waxaa la rabaa inay daba galaan procedure-ka la maraayo ay habraacyada ay dawladda u marayso doorashada waa in ay markaas arkaan oo fiiriyaan hadday arkaan wax khaldan waa inay qoraan jaraa'id baa jira joornaalaad waxaa jira idaacado raadiyaal iyo TV si sharaf leh uga hadlo issue-ga ka hadlo ma aha inuu dawladda waxaad oo dhan gacanta ku dhufto gudigeeda maamulkeeda waxa xaq u lahayd oo dhan ay sameysay inuu la qabsado ma aha taas waxaan u arkaa miduu nabiga ka hadlay calayhi salaam uu yiri qofka ulil amarka ah amarkiisa la qabsanina wuu ka digay maxaa yeelay hadii kale wax ma wadi karo hadday sidan ku sii wadaan dawladdu waa ka dhamaaday waantii ay raadinaysay oo madax salaaxi maadaama yaana la rabay in xujo lagu oogo iyaga way ka dhamaatay waxba ma harin 8 February waa taaganahay maanta 10kii waxa la marayaa January waqtigu waa dhamaaday dawladana barita iyada ku ceeboobayso hadii qaban weyso election marka qofka electionka qabariyo mas'uuliyad saaranta oo gudiyada magacaabeen u taa hadda waxa la yiri soo seega dadkii gudiga lagu soo daray oo idinka ka cabanaysaan inay ka tirsan yihiin maxay ahayd ciidamada ama ay ka tirsan yihiin dawladda civil service-ka ay ka tirsan yihiin maxay ahayd Kenya shaqaalaha dawladda inay ka tirsan yihiin liiskooda soo gudbaya waa bedelaynaa way soo gudbin waayeen waana mid hadda xanaaq ka keentay mudana qorqor iyo mudana ra'iisul wasaaraha iyo kuwa kaleba inay hadlaan maxaa yeelay nimankaasi umadan lahaa islaax in wax la dhameeyo waxay u dan leeyihiin inay wax rikaateeyaan wax fashiliyaan taasna ma soconayso makaro makar Allah wallahu khayrul maakirin makr bay wadaan makrigaasna ilaah baa qabanaya annagu waxaan rabnaa dawlad in la helo nabad la helo hatta hadii xogo qalqalooc jira ama qalad jiro bari aadam la yahay waa la samraa lama burburiyo maslaxada caamka ah iyo hab socodka dawladda ee wanaagsan lama xarqaladeeyo